qorshaha kaliya ee Soomaaliya kaga hortagi karta coronavirus waa inuu ku dhacaa 60% tobankii qofba 6 qof waa inuu ku dhacaa inta aanad walwalin u kaadi waxa arrinkan qaba cilmi baarayaal dhaqaatiir iyo saynisyahano haddaba intaanan u gudbin sharaxaadda difaaca dabiiciga ah ama health immunity iyo sababta ay Soomaaliya ugu qasban tahay dawladda federaalka ah sidii ugu diyaar garowday cudurkan Soomaaliya qaab NGO ah ayaa loo wajahay COVID-19 si la mid ah masiibooyinka ka dhaca dalka sida abaaraha daadadka iyo xitaa qaraxyada oo gurmadka loo fidiyo macaash laga doono caafimaadka dalka oo ku tirsan deeq-bixiyaasha caalamka wixii laga helay ayaa baratan loo galay bilowgiiba waxa iskood isku abaabulay kooxo kala duwan xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda caafimaadka gobolka Banaadir ururka dhaqaatiirta iyo Bashiir Goobe oo dhowr sariirood meel dhigtay eedeymo kala duwan oo aan xaqiiqdooda la hubin oo ku saabsan lacag la nusaday kadib waxa xabsiga loo taxaabay agaasimihii wasaaradda caafimaadka haddaba xaalku marka uu sidaa yahay qorshaha Soomaaliya ay kaga badbaadi karto coronavirus waa inuu ku dhacaa 60% shacbiga qorshayaal ka wanaagsan ayaa jira balse suuragal kama aha Soomaaliya xaqiiqooyin jira awgeed sida daryeelka caafimaadka ee dalka oo liita dhaqanka dadka Soomaaliyeed iyo duruufaha dhaqaale ee ku xeeran iyo dawlad taag daran oo bilaa qorshe ah herd immunity ama difaac dabiici ah waxa la gaaraa marka uu bulshada inteeda badan tallaal ka qaataan cudur gaar ah ama jirkoodu uu difaac dabiici ah ka samaysto cudur markuu dhacay hadduu ku haleelo coronavirus difaaca jirkaaga ayaa sameynaya antibodies oo kula diriro fayraska weerarka ku ah marka aad ka bogsato coronavirus jirkaaga waxa uu samaystay antibody ka hortaga haddii uu mar kale kugu dhaco waxa aad la mid tahay qof qaatay tallaal antibodieska jirkaagu samaystay oo xasuusan COVID-19 ayaa ka hortag ku sameynaya in mar kale uu kugu dhaco in muddo ah shacabka qayb badan oo kamid ah marka ay ka bogsato waxa yaraanaysa inuu faafo COVID-19 allow enough of us who are going to get mild illness to become immune to this waa inaan ogolaana in dad inaga mid ah uu ku dhaco si uu dadka jirkooda ugu jawaabo oo difaac u samaysto si aan u gaarno halkaasna waa in dadka uu ku dhacaya ay gaadhaan ilaa 60% la taliyaha xukuumadda Ingiriiska ee dhinaca caafimaadka iyo cilmi baarista Sir Patrick Vallance ayaa hadalkan yiri xilli ay UK qorsheynaysay in aan bulshada bandow lagu soo rogin balse kumay dhaqaaqin arrinkan ujeedka bandowga loogu soo rogay meelo badan oo caalamka ah ma aha inuu fayrasku maalmo kadib iska tagayo balse arrimahan ayaa sal u ah waqtiga in la beeqaamiyo iyo isbitaalada inaysan buux dhaafin Soomaaliya wax la beeqaamiyaaba ma yaalaan dawladdana waxa aysan haysan ayay qorshe u samaysatay madaxda dawladda inay kaga daydaan madaxda reer galbeedka habka ay shirarka jirayd uga soo muuqdaan waa caadi oo cidna waxba ma yeelayso balse marka ay soo minguuriyaan halhaysyada reer galbeedka ee ah stay at home gurigaaga joog iyo sharciyo loogu talagalay bulsho hodan ah waxa ka dhalan kara masiibo bini'aadanimo oo ay ugu horeyso gaajadu qiyaasta tirada guud ee dadka Soomaaliya ku nool oo ah wax ka badan 15 milyan boqolkii qofba 2 qof ayaa ka weyn 65 sano Talyaaniga shacbigiisu waa 60 milyan boqolkii qofba 22 qof ayaa ka weyn 65 sano halka shacbiga Mareykanka oo ah 331 milyan boqolkii qofba 17 qof ay gabow yihiin warbixin ay soo saartay CDC xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa ayay ku qortay sidan geerida lala xiriiriyay COVID-19 waxa boqolkiiba 80 ay ahaayeen dadka waaweyn iyadoo aad ugu sii badnaayeen dadka da'doodu ka weyn tahay 85 sano CDC tirakoobka ay samaysay waxa ay ku sheegtay in dadka isbitaalada la dhigay ay waayeelka u badan yihiin herd immunity is the one thing that will eventually slow down the spread of this virus. Herd immunity ama difaaca dabiiciga ah waa arrinka kaliya hoos u dhigi kara faafidda viruskan wax kale oo joojin kara ma jiraan mustaqbalka taasoo ka dhigan in dadka uu ku dhaco kana bogsadaan ama la tallaalo taasna waa fog tahay sidaa waxaa yiri agaasimo ka tirsan waaxda caafimaadka ee dalka Sweden waxaa gooni u ah in noloshu caadi u socoto dukaamada makhaayadaha goobaha waxbarashada ay gabi ahaanba wada furan yihiin Soomaaliya
qorshaha Sweden mid u dhaama ma jirto sababtoo oo ah awood uma laha inay fuliso tallaabooyin ka habboonaan lahaa sida xanibaadda dhaqdhaqaaqa dadka iyo isku imaanshahooda oo ay barbar socoto baaris guud oo si baahsan loogu sameeyo dhammaan bulshada. South Korea ayaa ah waddanka sida habsamida leh u fuliyay qorshahan. Mareykanka iyo South Korea isku maalin ayaa laga helay cudurka coronavirus balse natiijooyinkoodu aad ayay u kala fog yihiin. Mareykanka 700 oo kun oo qof dad ka badan ayuu haleelay cudurka 40 kunna wuu dilay. South Korea gebi ahaanba tirada uu ku dhacay waa 10,000 263 qof ayaa u dhintay. Ka hortagga degdega ee South Korea iyo ka dabatagga Mareykanka ee baaxadda weyn labadaba Soomaaliya ma kari karto wayna ku dayanaysaa. Dawladda Soomaaliya waxa kaliya ay awooddo ayaa ah inay yeesho dhowrkan arrimood sicir bararka inay ka hortagto. waxaa jira ganacsato dhigmeerad ah oo ka faa'iideysanaysa duruufaha jira. awoodda ciidan ee bandowga loo isticmaalayo dawladdu ha u adeegsato la socodka iyo dhaqdhaqaaqa suuqyada. wacyigelinta shacbiga taasoo ka bilaamaysa in ficiladooda iyo fariimaha ay gudbinayaan ay siiyaan. xirfadlayaasha caafimaadka in la gaarsiiyo agabka caafimaad ee loogu deeqay dalka halkii ay ku xaragoon lahaayeen madaxda iyo shaqaalaha dawladdu.